haddii Maraykanku isu diyaariyo inuu weerar ku qaado Iiraan balse xulafadiisa Bariga Dhexe ay diidaan in dhulkooda weerar lagaga qaado, maxaa dhici kara? Haddii dalal muhiim ah sida Qatar iyo Sacuudi Carabiya ay diidaan in saldhigyadooda laga bilaabo weerar, Maraykanku wuxuu ku khasbanaanayaa inuu adeegsado qorshe labaad. Qorshaha labaad wuxuu ka dhigan yahay in laga fogaado gobolka Bariga Dhexe, weerarkana laga bilaabo saldhigyo ku yaala Yurub. Laakiin masaafada dheer waa caqabadda ugu weyn ee dagaalka cirka, taas oo gebi ahaanba beddesha istaraatiijiyadda military. Imise saldhig ayaa uu ku leeyahay Maraykanku Bariga Dhexe? Maraykanku waxa uu Bariga Dhexe ku leeyahay qiyaastii 30 ilaa 40 saldhig, waxaana jooga 30,000 ilaa 40,000 oo askari. Saldhigyadan waxaa ka mid ah saldhigga weyn ee Al Udeyd ee ku yaala Qatar, xarumo badeed oo ku yaala Baxrayn, saldhigyo ku yaala Imaaraadka Carabta. Haddii Maraykanku waayo adeegsiga shabakadan saldhigyada ah, weerar ku qaadista Iiraan waxay noqonaysaa hawl aad u adag dhinaca saadka ama logistics-ka. Sidaas darteed ayuu u diyaarsadaa qorshaha Yurub. Qorshahaasina waa mid hore ugu diyaarsanaa. Qorshaha cusub muxuu yahay marka? Qodobka ugu weyn ee qorshaha cusub waa in la adeegsado diyaarado badan oo shidaal ku shuba diyaaradaha kale ee hawada dhexdeeda socda. Air to air waxaa si gaar ah loo adeegsanayaa diyaaradda KC-135 oo kasoo duulaysa Maraykanka iyo Ingiriiska, waxaana ay ku degaysaa dalalka sida Greece iyo Bulgaria. Sababta ay KC-135 muhiim u yihiin waa tan: diyaaradaha dagaalka sida F-35 ama F-16 ma qaadi karaan shidaal ku filan oo ay kaga duulaan Yurub kuna gaadhaan Iiraan kuna soo noqdaan. Intaasoo dhan ma awoodaan inay qaataan shidaalkaasi oo dhan. Sidaas darteed KC-135 waxay hawada kaga shubayaan shidaal si ay u suurto geliso inay diyaaradaha dagaalku gaadhaan bartilmaameedkooda kuna soo laabtaan si nabad ah. Haddii diyaaradaha shidaalka qaada aysan duulin, weerarna ma dhici karo. Doorka ciidanka badda Maraykanka. Haddaba, maadaama oo aynu ogaanay doorka ciidanka cirka ee Maraykanka, waa maxay doorka ciidanka badda Maraykanka? Si loo magdhabo khasaaraha saldhigyada dhulka, ciidanka badda ayaa soo geliya ciyaarta. Markabyo waaweyn oo diyaarado qaada aircraft carriers ayaa u dhaqaaqaya badda Mediterranean-ka si ay halkaas uga bilaabaan weerarka. Markabkan cusub wuxuu adeegsadaa nidaam koronto oo electromagnetic ah oo diyaaraduhu kaga kacaan halkii laga isticmaali jiray uumiga ama steamka. Faa'iidada nidaamkan cusub waa inuu si jilicsan u dardargeliyo diyaaradda, taasoo yareynaysa dhaawaca ku yimaada jidhka diyaaradda. Difaaca gantaalaha. Maraykanku wuxuu sidoo kale u baahan yahay nidaamyo badan oo difaaca gantaaleed sida Patriot iyo THAAD. Waxaa la sheegay in 100 duulimaad xamuul ah loo baahan yahay si loo raro qalabkan. Gantaalaha duugga ah ee Patriot ayaa laga soo qaadaa kaydad ku yaala Jarmalka iyo Japan si loogu isticmaalo ka hortagga diyaaradaha droniska ee Iiraan. Gantaalaha cusubna waxaa loo kaydiyaa khataraha waaweyn sida gantaalaha ballistiga iyo kuwa xawaare sare ku socda ee hypersonic ah. Weerarka bilowgiisa. Haddaba weerarku sidee buu ku bilaabmayaa? Weerarku kuma bilaabmo diyaarad duulaysa oo qof wado, balse wuxuu ka bilaabmaa badda dhexdeeda. Markabyo nooca Arleigh ah ayaa lagana tuuraa gantaalo Tomahawk ah, kuwaas oo si hoose u duula si aysan raadaradu qaban. Gantaaladani waxay burburiyaan raadarada iyo xarumaha taliska ee Iiraan si loo daciifiyo difaaca hawada. Kadibna diyaaradaha qarsoon ee B-2 Spirit ayaa gudaha u gala hawada Iiraan si ay u garaacaan bartilmaameedyo muhiim ah. Istaraatiijiyadda Iiraan haddaba maxay noqonaysaa? Iiraan iyaduna waxay leedahay xeelado dhowr ah.
Xeeladda koowaad, weerar doonyo badan ah. Doonyo yaryar oo badan ayaa isku mar weerara markabka weyn si ay u mashquuliyaan difaaciisa. Miinooyin lagu aaso badda Hormuz si loo xannibo marinnada maraakiibta shidaalka. Kaasina wuxuu ahaa qodobka labaad. Qodobka saddexaad, gantaalo xeebta laga rido. Xeebaha buuraleyda ah ayaa siinaya meel ay ku dhuuntaan gantaalo guura ama mobile launchers. Qodobka afraad, submarines yaryar, kuwaas oo ku dhuuman kara biyaha gacanka si ay taargetkooda u beegsadaan. Torpedo ugu dhuftaan maraakiibta. Qodobka shanaad, drones tiro badan si ay u waxyeeleeyaan raadarada iyo sagxadaha duulimaadka maraakiibta. Droneskan qaar badan oo ka mid ah waxaa qaban doona difaaca markabka, balse ugu yaraan qaarkood saameyn ayaa yeelan doonaan oo ay soo dhaafi doonaan. Roob gantaalo ballistic ah si loo beegsado saldhigyada iyo dekedaha Mareykanka ee gobolka. Waa in gantaalo ballistic ah lagaga dhigo sidii roobkii oo kale. Haddii markab diyaarad qaada la dhaawaco, maxaa dhacaya? Mareykanku weli wuu dagaalami karaa. Taliska Air Force Global Strike Command wuxuu 24 saac gudahood meel kasta oo dunida ah u diri karaan 3 nooc ee diyaaradaha waaweyn ah. Ta koowaad, B-2 Spirit, diyaarad qarsoon oo burburin karta xarumo dhulka hoostiisa ku yaala. Diyaaradda labaad oo ah B-1B Lancer, waxaana qaada xamuulka gantaalaha ugu badan diyaaradani. Diyaaradda saddexaadna waa B-52. Inkastoo ay duug u boqoto, haddana waxay ridi kartaa gantaalo meel fog iyadoo aan gelin hawada cadowga. Ugu dambeyn, istaraatiijiyadda Mareykanku waxay ku dhisan tahay burburinta difaaca hawada marka hore, kadibna weerar ballaaran ayaa lagu qaadayaa. Sababta ay B-2 muhiim u tahay waa inay tiradeedu yar tahay oo keliya 19 keliya ay tahay. Sidaas darteed waxaa loo adeegsadaa howlgallada ugu halista badan. Markasta lama adeegsado